kalsoonida oo xeer ilaaliyuhu ku shaqeynay golahanna inuu kala noqdo kalsoonida madaxweynaha magacaabo xeer ilaaliyaha wuxuu u baahan yahay goluhu inuu madaxweynaha ku jiro dastuur jibinta iyo waxa weeye xeer jibintii inuu madaxweynaha tallaabo ka qaado soo jeedin lahaa xaq baynu u leenahay inaynu kalsoonida kala noqono isaga iyo kuwa kala badan oo suuqa jooga ama wasiiraa ama hay-adaa xaq baynu u leenahay waa inaynu awoodeenna sharci isticmaalnaa هكذا واحد مهدا إنه كنت أساسي حلاليه أودي قلال وحط المامي إنه يهاي هايد كميدا هايدا قرصورك فعليا تودق ميينا تي قرصورك ما هي تي حكومة داعي لكن ما أنت ما دام وعرق أرى النوت هاي هذين الوهنا يستجينا حلك هاي نكقاد حلاليه وحن قواينا جاية دستور كتشبينا مضنا يلينا وين الدستور كيلالينه إلا حيرانيها كودينا بسوهم واحد درين رسمي لقى قادم أو شركتين بدأ أو بدأها سكوك لين بسوهم سيادة هذا وهو ما ولي واحد خرج له ولي يكون رئيسا انتيهم إن السياسة ليست هذه الدنيا ولا واحد كجرا كم طلبات كاملة إلا هو بين اليوم إن عدلوا ما هاي سنة كهو محاسنة خدلوا للسجن وح النوع أرن كان إنا أنو أهين أرن هديه بين كده ليه هاي إن أرن شرعي أرن سياسي يسويه لبا حرلاليه تقول وحقيقة موقتها إنه حقيرة يقولها إن حقيرات قوله تمحكمة هم بيتطفي يقانان لكن حقيرات قوله وحيلا متهاي إهانين محكمة هاك وقول قرن وقول دستورية كحدود كحصانة ما هو كلية مضناها إن نقول حدود بيه قرن كان نقول حدود بيه حلي بان محمد عبيد oo maanta xeerlaaliyu naga dhaadhicin qarandumisnimay inuu xidhan yahay waxa weeyaan wuxuu kula hadlayay ummadii u soo banbaxaysay magaalada Boorama waynu wada ogeyn ma qofka aydu ka aragtay warbaahintu qarandumis ma noqon karaa way su'aashu ma layna soo hordhigay wax ka duwan oo aynu ku go'aan qaadan karo waa maya لأنما سهر بيجين واحد دول وأنا ما أعرف عن قاعدنا لأنما سهر بيجين إهانة الكوبات هرلالي وحوكب بالعبي سوتشين في جدية شوك ترى هي قالوه يسقى أمة حبنان سيدا وشقوين كي سوق بدني فالله وكب حين يجي هرلالي هكو ما هي واحد مناسب كوه قالها ما هي مركل قرطون مضنع hadduu xataa falagaranse ku jiro cidda koowaad ee la soo wargelinaya waa shirgudoonka iyo gudida joogtada haddii fasax lagu maqan yahay labada midna lama soo wargelin waxaan wada ognahay shirgudoonkooda ka raadinaya maxamed abiibaan keebuu ku xidhan yahay hay-adaha fulinta sharciga ka dhex raadinaya golahan waa la yaraystay lama yaraysan golaha qarankaa la yaraystay haddaynu ogolaano dembiga ugu weyn aan ku dhacaynaaba waa ka anigu waxaan soo jeedinayaa mudanaya xeer ilaaliyaha kalsooni kuma qabi karno inuu dhexdhexaad ka yahay dacwad oogista qaranka xildhibaan maxamed abiib kun jeer baa lala soo fadhiistay warbaahinta qaranka dad xataa kala dooranaya xubnaha jidhkiisa si ay u kala googoynayaan maalin qura midna ma soo eeday sidaa darteed aniga waxay la tahay marnaba dhexdhexaad kama noqon karo garsoor saxana kama bilaabi karo xeer ilaaliyo ugu dambayn waxaan jecelahay in mudanayaal laba arrimoodba aynu samayno ilaa hadda xeer ilaaliyuhu inama soo hordhigin waxaynu ku go'aan qaadanno sidaa darteed
qabashadiisa waxaan soo jeedinayaa inaynu u aqoonsano inay sharci darro ahayd. laba waxaan kaloo soo jeedinayaa kalsoonida uu xeer ilaaliyuhu ku shaqaynayo. xeer ilaaliyuhu madaxweynaha magacaaba dabcan, laakiin kalsoonida golahan uu ka helay buu ku shaqeeyay. golahanna inuu kala noqdo kalsoonida. xaliga maxamed abiib xalig sharci maaha, waa xalig siyaasadeed. wuxuu u xidhan yahay siyaasad ayuu xidhan yahay maxamed abiib. wuu u xidhan yahay siyaasad buu u xidhan yahay maxamed abiib. waxaa ku tusaysa kuu caddaynaysaa waxay dadka ku odhanayaan waxaanu ku dembi uu faraha kula jiro ayaanu ku xidhnay bay leeyihin. haddana waxay soo codsanayaan xaliga in loo xalaaleeyo. xaliga in loo xalaaleeyo ayay haddana soo codsanayaan. oo warqadahan hadda uu keenay iyo kuwii ka horreeyeyda codsigoodu wuxuu ahaa in xaliga loo xalaaleeyo. taasi waxay idiin caddaynaysaa in wax fargabansiyo la yidhaaha aanu jirin. waxaan maqlayay sawirro ayaa la keenay. sawirrada waa la gudbin karaa, waa la isu geygeyn karaa, laakiin waxaa taalla sawirka yaa markhaati u ah. maxaa marag u ah sawirka? xaggee laga qaaday sawirka? maalintee la qaaday? meel maa lagu qaaday? goobtee lagu qaaday ayaa taalla. waxaa taalla meel walba. hadda meesha uu ka yimi maxamed abiib waa dalalka horumaray bay ka mid tahay. meel walba kamarad baa ku xidhan, cc kamaraa ku xidhan. haddii uu maxamed abiib leeyahay dembi cc kamarahaasaa laga soo saari lahaa oo imaaraadka ay odhan lahayn markiiba nooga soo saar. sawirku waa inuu markhaati yeeshaa oo codkii la socdaa sawirka. taasi waxay caddaynaysaa inaanay waxba ka jirin, wax fargaransiya oo maxamed abiib galay aanay jirin. markhaatina iyagaa furaya oo warqadan ay hadda soo hordhigeen golaha iyo tii ka horreysay iyo tii saddexaadba xalaalayn kamay dooneen. in looga in xasaanada golahu ka qaado kamay dooneen golaha. horta sidaasaanay u jirin oon saxaafadda iyo cid walba iyo dadweynaha u sheegaynaa wax fargaransiya la yahay inaanu jirin. markay caynkaa tahay maxamed abiib waa xidhan yahay. xaligiisu wuxuu noqonayaa xalig sharci darro ah oo ay ku xadgudubtay xukuumaddu oo aanay awood u lahayn. golaha wakiiladana aanay ka helin sida uu dhigayo qodobka 49 wax ogolaansha aanay ka haysan oo goluhuna ka diiday. sababuu ku xidhan yahay maalinkaa maanta ma jiro. waxa weeye waa qas siyaasadeed oo ay xukuumaddu doonayso, oo ay ku doonayso codadka gobollada qaarkood inay kala turto ayay doonaysaa. sidaa darteed labadii qodob uu soo jeediyey maydhane labadaa qodob waa ka garaynaya. waxaanse ka horraysiinayaa warqaddii xeerar ayuu keenay maalintii dawladee aynaanu codayn inaynu taa u codayno oo ku diidno horta ugu horrayn. mar labaadkana labadaa qodob aynu cod u qaadno. kalsoonida innaga shacabkayna soo doortay, ummaddaynu matelaa, somalilan baynu matelaa. raggan la soo magacaabaya madaxweynu soo magacaabaya innagaa kalsoonida siinay. hadday sharciga ka baydhaan oo ku shaqayn waayeen sida sharcigu tilmaamayo, xaq baynu u leenahay inaynu kalsoonida kala noqonno. isaga iyo kuwo kala badan oo suuqa joogo ama wasiiraa ama hay-adaa xaq baynu u leenahay. waa inaynu awooddeenna sharci isticmaalnaa. awooddeenna sharci waa inaynu isticmaalnaa. waxaan soo jeedinayaa warqaddii horena ha loo codeeyo, labada kalena cod baynu u qaadaynaa. saasaan soo jeedinaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane guddoomiye, waxaan la qabaa oo aan sakan garaynayaa xildhibaankii iga horreeyey mukhtaar xasan maydhane in xadhigga uu ku xidhan yahay xildhibaan maxamed abiib warta qafaalasho yahay. mar labaad inuu xadhig siyaasiya yahay oo xukuumadda maanta joogtaa iyadu ay qorshaysay xadhigga. haddii aan u soo noqdo xeerlaalintu iyadoo aynu ognahay waraaqihii badnaa ee maalmihii ugu dambeeyey ay isbaal eeriyeysay inay khayr sharci ahaayeen, nuxurka iyo tafsiirka ay xambaarsanaayeen. saakana waxaad moodaa inuu ku jeejeesay xeerlaaliyuhu awooddii golaha. wuxuu tilmaamay inuu yahay hay-ad ka mid ah hay-adaha garsoorka. ficliyan
tuu dhaqmayeyna tii garsoorka ma ahayna tii xukuumadda ahayd wuxuu kala doortay waajibaadkii golahani lahaa wuxuu inaga codsaday inaynu u sheegno waxaynu u doonayno xaqna inaguma lahaa qofna ujeedka aynu ka leenahay maadaama golahani yahay uu huwan yahay awooddii shacbiga oo quwaddii shacbiga xambaarsan yahay la xisaabtankii hay-adaha xukuumaddana uu xaq u leeyahay inuu kala doorto oo yidhaahdo waa inaa wax naga weydiisaanuun arrimaha maamulka ee hay-addayda sidaa ay tahay weli waxaa daba taalla haddaa eegtaan qoraalkiisa inuu weli codsanayo inaynu u xalaalayno xadhigga sharci darrada ee xildhibaan maxamed abiib waxaan qabaa waan halkan ku soo jeedinaya kow in goluhu qaraar ku buriyo warqaddii maalintii dhoweyd halkan uu keenay xeerlaaliyo laba warqaddan uu maanta keenay sida raggaa hore sheegeen maadaama uu golahan yahay golihii u xalaaleeyey inuu shacbiga u shaqeeyo in kalsoonidiina aynu kala noqono ta saddexaad waxaynu ka digaynaa hay-adaha kale ee maxkamadda sare ku jirto ee u soo faarfaaranaya kiiskan maxamed abiib inaanay faraha la soo gelin wabilaahi towfiiq dhowr jeer lagu celiyey maxamed abiib yuusuf wuxuu ku xidhan yahay arrin sharci maxamed abiib yuusuf ma aaminsan arrin sharci ku xidhan yahay maxamed abiib wuxuu ku xidhan yahay ka aragti duwanaansho xukuumadda ah maxamed abiib wuxuu ku xidhan yahay aftuub burcadnimo laba xuseen waayo maxamed abiib sidaa hore loo sheegay isagoo kasoo degaya airboodka hargeysa ayaa la qabtay waxaana runtii garamaayo goorta dambi noqotay qof diyaarad ka soo degayaay in faldabyeed uu gacanta kula jiray sidoo kale warqadda inoo soo gudbisay xeer ilaalintu dembiyada ku soo qortay waa dembiyadii markii hore ay noo soo gudbisay oo runtii ay ku soo dartay oo keliya waraysigii uu bixiyey maxaa abiib uu ku bixiyey duway uunbaa ku soo qoray marka ma jiro faldambiyeed uu gacanta kula jiray maxamed abiib laakiin runtii waxay xukuumaddu muddada ku taabaysay iyagoo adkaysan weyday ka aragti wanaanshaha maxamed abiib inay muddada sida ay runtii manwasiya ugu heli lahayd inay xidho kumana tilmaami karno xadhig waayo xadhig waxaa loo tilmaamaa xadhigga sifada sharcigaa maray laakiin wuxuu ahaa aftuub buu ahaa runtii aada iyo aad baan runtii u cabaareeraynaa goluhuna anugu ma aaminsan in xeraaliye xasaanad kala noqdee madaxweynaha magacaabo xeraaliyaha wuxuu u baahan yahay goluhu inuu madaxweynaha ku jira dastuur jibinta iyo waxa weeye xeer jibintii inuu goluhu madaxweynaha tallaabo ka qaada soo jeedin lahaa assalaamu calaykum dhaweyd ee golaheenu uu codeeyey laba xeer amba laba waraaqood baa golaheena yimid labaduba si sharci ah ayay golaheena ku yimaadeen mid golaheena waxay taallay muddo ku dhow 2 bilood oo waxay ahayd tii ay xeeraalintu ku soo gudbisay in xasaanada laga qaado xildhibaan maxamed abiib goluhuna waajibkiisii uu ka gutay oo uu ku diiday isla maalinta golaha waxaa timid waraaq labaad oo ahayd inaynu ogolaano amba ogeysiintii aynu ka qaadano waajibkeena sharci oo ahayd qabashada xildhibaan maxamed abiib waa koow waxaan saxayaa garyaqaanka golaha waraaqda labaad kama inaan jawaabin waa sharci darro midna kuma inaan sheegin runtii waxaan u rajaynayaa ama u soo jeedinayaa garyaqaanka goluhu inaanu marin habaabin sharciga oo iska ilaaliyo isagoo siyaasi maaha sharciga waa inuu sidiisa u sheego waraaqda labaad wax shaqaa kama inaan qaban ogeysiinta mana inaan ogolaanin mana inaan diidin iyadoo halkaasay taallaa waxa keliya aynu ka jawaabnay waxay ahayd xasaanadka qaadidii xildhibaanka waynu diidnay mudanayaal ma aha golahan inaynu u isticmaalno sidaynu doonayno oo aynu golahan ka dhiganno meel aynu ajendaheena ku gudbinno haddii kale golahani wuxuu noqonayaa iyadoo arrin sharci inoo taalo inaynu arrin siyaasadeed aynu ka dhiganno qabashada xildhibaan maxamed abiib xeraalyaha guud wuxuu ku sheegay inuu dembiye faraha kula jiray dembiyadiina waa uu soo dhigay laba mid unbaa inoo taalla maadaama ogeysiin inoo keenay inaynu ogeysiintaa u codayno haddaynu 5 xildhibaan ku fadhino shaqadeennana ka gudanno haddii kalena
aynu sugno waqtiga aynu shan kontakaynu buuxsamayo laakiin waa xarig siyaasiya iyo xarig siyaasiya maaha dad baa la kicinayaa waxaad moodaa golaheenu inuu mar walba ku noqnoqonayo halkuu taagnaa maalintii golahan aynu nimid ilaa maanta oo ahoon inaynu ajendayaal siyaasiya golaheena dhex marayno sidaynu doonayno inaan hadalka u dhigno maanta xildhibaan maxamed abi wuxuu u xidhan yahay arrin sharci arrintaas sharciga haddaynu ku qancayno iyo haddaynan ku qancayn innagay noo taalla laakiin inaynu sharciga wax ka sheegno waxaan maqlayay muxuu xildhibaankii ugu horreeye garyaqaanka ahaa ee isagu maxkamadahana yaqaanay oo halkan kiiskii maxkamadda ku galay go-aankiina gaadhay runtii waxyaabaha caynkaas waxaan isleeyahay talahaan inooma fiicna haddii aynu ogolaano maxkamadday tegi doontaa kiiskuna halkaasi ayuu mari doonaa oo amba sharci ku noqon doonaa amba sharci darro ku noqon doonaa maanta innaga waxay noo taale waxay awooddeenu ku joogto waxaan sidoo kale jeclayna kelmad ka idhaahdo aynu mas-uul xil qarankan u haya oo aynu inagu kalsoonida siinay kalsoonida aynu kala noqonno halka ay ku taalo aanu garan maayo haddaynu dee dastuurkii furnaynu maanta wax ku dardaraynana dee waa arrin cusub kolley horena waynu u jebinay dastuurka waxyaaba badan waynu ugu samaynay haddaynu maanta ku cusub samaynayno inagoo cadhaysanna dee innagay noo taallaa dadweynihiina doortayna ee runtii iyagaa markaa ka gaadhi doono go-aanka laakiin golaheennaa u baahan dastuur ilaaliyahaynu waa innaga maxaa yeelay innaga ayaa xeerarka dalka gacanta ku hayna haddaynu cadhadeenna qaarna ku darayno qaarna ka masaxayno maalinba sayn doonno u dhigayno runtii waa dhibaato meesha taalla xildhibaan maxamed abi weli uu leeyahay taatalkii xildhibaan maxaa yeelay innaga ayaa xasaanadiisa u ilaalinay taasi waa taa laakiin qabashada la qabtay maadaama xeerlaalintu tiri dembiye ayuu faraha kula jiray dembigaana wuxuu ku soo sameeyey dal ka baxsan somalilan maadaama aan qofkii lagu qaban karayn qurbaha aan lagu qaban karayn hadduu dembigaa imaaraadka ku galay dee somalilan imaaraadka kuma soo xidhi karto qofka marka qofka waxaa la xidhi karaa maalinta koowaad uu dalka soo galo marka halkaasi ma taalo meel aynagu ku nidhaahno weli gacmaha kulamuu jirin laakiin waxaan u baahanay inaynu caddaymihii helno waxaan u baahanay xeerlaaliyu inuu golaha hor imaado waa inaynu sugnaa intuu inoo imanayo horena way u dhacday inuu golahan mas-uul loo yeedhay aw keensaday uu yidhi dib iigu dhiga weligeenna waynu ka yeeli jirnay laakiin maanta maadaama oo cadho gaara ay noo tahay haddaynu dhahno isagiina xilka aynu ka qaadno xeerlaaliyihii waxaan qabaa innaga ayaa dastuurka jebinaynaa mudanayaal innagu aynu dastuurka ilaalinno intaynan cid kale dastuur jebin ku eedayn asalaamu calaykum